arrintani waa dhacdo ugubka ah xisbiga kulmiye haddii madaxweyne muuse biixi u arko doorashadiisa gudoomiyaha xisbiga kulmiye loo doortay guul xisbiga kulmiye u soo haygatay waan ka aragti duwanahay waxaan aaminsanahay inay tahay guul darro xisbiga kulmiye guulgal u yahay maanta waxaan leeyahay saaxiibkay madaxweyne waxaad tahay nin weyn oo aan gu iyo garasho u dhinayn waxaad tahay dhowr iyo 70 jir nabigeenu nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatee wuxuu yidhi ina acmaara ummatii maa bayna 60 wa 70 wa aqaluhu man yajuusu dalika ummadayda cimri dhererkeedu marka la isku celceliyo waa 60 ilaa 70 inta u dhaxeeya in yar baa halka dhaafisa buu yidhi dhowr iyo 70 dhowr iyo 80 dhowr iyo 90 boqol waxaad ku jirtaa alle galadii intii farku tiriska ahayd ee ka gudubtay ama ka dhowr iyo 70 oo cimrigoodu dhaafay ayaad ka mid tahay maanta waxaad tahay cadceed casar joogta cimri kuu dhiman iyo caqli kuu dhimanina ma jiro mansab kuu hadhayna man jiro oo aad higsanaysaa madaxweynihii qarankaa tahay waxaad maanta garan weyda garan maayo goortaad garan doonto ama gaari doonto waxaan leeyahay muusow halkani waa halkaad jannada ka geli lahayd haddaad noqoto imaam caadila oo ummaddiisa ilaahay dartii si daacadnimada ugu adeega sidoo kale waad ku naar mudan kartaa haddaad ammaanada dayacdo iyo mas-uuliyadda aad hayso madaxweyne maanta adiga oo da'ah oo jooga aakhirulcimri waa nasiib darre weyn in lagugu tuhmo inaad ku foogan tahay adduun urursi iyo dhulbood muusow saaxiib cimri tegay ceeb laguma sagootiyo haddii dareenkaa dadkaaga isaga baxay dacal iyo daraf uu run yahay alle ka cabso oo u toobadkeen oo tubta toosan qaad